Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaad kusoo dhawaataan janaalkan YouTube-ka cusub. Een, waxaan doonayay inta badan waxaan doonayay inaan sameeyo for networking and also operate system. I did some of the waan sameeyey networking part, but waan samayn doonaa, waan recording doonaa, and then I will post, waan ku dhejin doonaa the YouTube channelka. And also waxaan doonaya inaan recordiyo for Windows operating system. Aan ugu horeysiin doono maanta waxaan ka shaqeyn doonaa een, recording doonaa this our exercisekeena koobaad waxaan ka shaqeyn doonaa installing Windows Server 2019 kan baan samayn doonaa, and then waxaa kaloo samayn doonaa exercise 1.2 oo ah installing VM1 tool. And waan inii explain doonaa wuxuu kan yahay kan markaan samayno laab kalaan isna samayn doonaa. Marka waa laab can ayaan doonayaa golku. Marka insha Allah aan bilowno hadda insha Allah. Marka waxaan samayn doonaa waxaan haystaa this is the VMware station. It's called waxaa la yidhaha magasa workstation 16 Pro. Waxaa jira 17 baa jira, waxaa jira 15 baa jira. Marka this one waa la soo dhowlogarayaa with your computer-kaaga ayaad ku dhowlogaranaysaa. And then marka wuxuu kuu dhib yarayn doonaa inagoo kan haysana aan creatino Windows kale ama Linux ama Windows Server, all kind of Windows. Marka hadda waan bilaabo waxaan oran doonaa create baan oran doonaa. Markaan create ilaha wuxuu siin doonaa this shaashadan buu siin doonaa. Waxaad arkaysaa shaashadan laba qaybood baan haystaa, typical iyo waxaan haystaa custom. Marka waxaan isticmaali doonaa custom. Marka waxaan oran doonaa next. Marka anu kan hadda saan idin sheegay kan isticmaali waxa weeye workstation 16. Laakiin hadda kayga u dambeeyey kuwa kale cusub baa ka dambeeyey, laakiin hadda kanaan haysto waa kaa 16, laakiin 17 baa hadda jira. Marka kaasaan ku daysan doonaa, kaa hadda ku jira, and then waxaan oran doonaa next aan oran doonaa. And then wuxuu siiyey shaashadan oo ah shaashada marka waxa weeye waxaan oran doonaa I will install the operating system later. Marka saasaan markaa ku dayn doonaa, kan next aan oran doonaa. Waxa weeye markan shaashadan aan mar labaad arkay shaashadan waxa weeye waxaad install garanaysaa hadday noqoto Linux iyo hadday other noqoto iyo hadday noqoto magaranaysaa VMware EX oo ah maad garanaysaa waxaa jira VMware waxaa jira type 1 and type 2 baa jira. Marka kan isticmaal waa type 2 weeyaan. Marka anu hadda waxaan inaan install doonaya Windows Microsoft Windows, and then waxaan isticmaalaya version kan isticmaalayna oo Windows Server. Later laakiin waxaan samayn doonaa halkan Windows 10 baan ka dooran doonaa oon installing doonaa. Marka hadda waxaan ku daysan doonaa that server. Marka waxaan oran doonaa next. And then magac baan u bixin doonaa oo computerkeena aan kanan machine kan isticmaali doono. Marka waxaan u bixin doonaa control oo user gabiyo domain oo user gabiyo iyo CO control. Ka waan raacin doonaa. Marka computerkan isticmaali doono virtual machine waxaa la oran doonaa DC1 baan oran doonaa. And then waxay noo taalaa haddaan doono inaan meel ku save computerkan ku savino iyo haddaad ku save garanaysid SSD drive or any storage. Marka anigu waxaan ku save garan doonaa computer kuma save garanayo, laakiin SSD drive ku save garanaya. Marka waxaad ku dhufan doontaa browser ku dhufan. Markaad browser wuxuu ku siin doonaa this option kan meesha ku save garanaysid. Anigu laakiin waxaan doonaa inaan ku save garayo SSD drive baan haystaa, taasaan ku dhufan. Marka folder horaan usoo sameeyey, marka folder kan Windows machine ay u qoran tahay 2024, taasaan ku dhufan. And then kan waan sii qortay Windows Server oo aan usoo gaabiyey, taasaan marka ku dhufan. Marka halkan buu soo galay. Marka waxaan doonaa halkaasaan ku safinaya. All my file is going halkan buu tegi doonaa. Kan next aan oran doonaa. And then this shaashadan arkaysaan waa BIOS baa soo baxay iyo UEFI oo kan dambe ah. Marka kan anigu defaults baan ku daysan doonaa. Kan next aan oran doonaa. And this the number of processor ya doonaysid, bad anigu waxaan ku daysan doonaa the default aan ku daysan. Kan next aan oran. And then the RAM wuxuu siiyey the default wuxuu siiyey asiyo kan si calaamadaas ay sheegaysaa 2 gigabit buu siiyey. Bad waad ku dayn kartaa 2 gigabit waad ka kordhin kartaa. Ka anigu waan ka kordhin doonaayo 4 baan ka dhigi doonaa. 4 gigabit marka next aan oran doonaa. And then halkan wuxuu siiyey network type. The network type kan siiyey waxaan ku daysan doonaa use network address translation oo ah NAT. Kan markaan isticmaalo internet keenan xaafadda ama kaad isticmaalaysid wireless ama wax kasoo ka soo qaadan doonaa. Kaasaan ku dayn doonaa host baa jiro la geliyo, laakiin kama ku dayn doonaa. Marka next aan oran doonaa. This page the IO controller type defaults waxaan ku dayn doonaa kama ku dayn doonaa the recommending oo kaasaan ku dayn doonaa bedeli maayo. Kan kale laftiisa maad garanaysaa the disk type
waxaan ku dayn doonaa kan baan ku dayn doonaa ah afartan baa jira but this is the one that you in the default marka kaasaan ku dayn doonaa next aan odhan doonaa halkan inaku haddii aad hore u creatinay machine kale oo doonaysa inaad isticmaashid halkan baad ku dhufan laakiin inaku siinaysa machinekeenu kii ugu horeeyahay oon hadda aan creatinayno waxaan odhan doonaa create a new virtual disk marka ku cusub baan markaa creatinayna aan halkan wuxuu weydiiyey the specify the disk aan creatinayna the maximum I have right now 60 the defaults marka kaasaan ku daysan doonaa marka halkan wuxuu yidhi ma doonaysaa inaan split sameeyo oon laba u kala qaybiyo marka waxaan ka dhigi doonaa storage disk as a single file inaan kala qaybiyo ma doonayo marka kaas aad arkaysid ayaan doonan doonaa kan next aan odhan marka this is the waa magacii noo dooray oo ahaa domain controller aan one raaciyey marka waxba bedeli maayo magacaasaan isticmaali doonaa next aan odhan marka this is waxa weeye all the summary of the wixii aan dooranay the name kii waan dooranay the locationka meeshaan ku save gareeyey iyo versionkaan isticmaalayo iyo operating system oo windows server 2019 isticmaalayo iyo hard diskaan isticmaalayo waa 60 aan isticmaalay ramkana waxaan isticmaalayaa 4 gigabyte oo u taagan 4096 MB u taagan waxaan networkan isticmaalayana waxa weeye net baan isticmaalayaa the other devices sidii aan sheegay the processor oo CPU I'm installing 2 baan isticmaalaya waan lahaa kan finish baan oran doonaa and then wuxuu ina siin doonaa halkan buu inoo soo dhigi doonaa mashiinka waa kan mashiinkan creatinay marka inaad haysatid weyn ISO file aad haysatid ISO file inta badan waa soo dholo kasta marka ISO file kan already waan haystaa ISO file kii marka ISO file baan gelin doonaa markaan ISO file gelinayo halkan baan dooran doonaa oo waa CD ama waxaan dooran doonaa edit virtual ama waxaan tegi doonaa VMware tool oo settingka ah inta waad samayn kartaa marka let's go waxaan oran doonaa kan baan normally wadanadeena kale waxaan isticmaalaa cajalida CD gaan isticmaalaa marka kan baan ku dhufan markaan ku dhufto wuxuu ii furmay shaashadna baa furantay marka shaashadda ii furtay halka waxaan jeedaa CD marka ISO file kii baan doonaa soo download gareyn inkastuu ku jiraba laakiin haddana halkaas aad ku dhufanaysaa and then process oran markaad process tahay halkan buu ku yaala kaas ka ii yaala Windows Server 2019 and then click baan oran and then waxaan okay and then markaan okay ra hadda we can start the computer we can power on but when you markaan shidno waxaan samayn doonaa any keyboard ka daawan doontaa matalan markaan wadanadeena joogno kale waliba berigii hore markaan isticmaali jirnay CD aan gelino aan computerka restart aan samayn jirnay and then boot marka any number waxaan daawan jirnay F8 ama F2 alif soo u qabsado marka halkan oo kale markaan power shidno any keyboard daawan doontaa any keyboard taaban marka siduu u qabsado marka hadda uu qabsaday any key space baad macala taaban kartaa marka hadda waxaan gali doonaa processkii aan recordinayna insha Allah laakiin markaan dhexda ku jirno kale ayaan mar joojin doonaa the fiidiyaha insha Allah marka shaashadan sidaad arkaysaa baa noo soo baxday oo ah the language aan doono the language marka English aan ku dayn doonaa the time-ka waxaan ku dayn doonaa taasaan ku dayn doonaa and the key input kan isticmaali doonaa US kan ku dayn doonaa kan next time oran doonaa marka hadda waxaan samayn doonaa install baan ku oran doonaa this is a Windows Server 2019 install ha marka activity window soo baxday marka waxaan oran doonaa I don't have the key product aan oran doonaa halkan and then wuxuu weydiiyey doono select the operating system you want to install marka anigu waxaan doonan doonaa the kan baan doonan doonaa kan ah maad garanaysaa Windows Server 2019 data center taas the desktop experience taasaan doonan doonaa and then waxaan oran doonaa next and then waxaan tagi doonaa the diskiga aan creatinay ahaa 60 first one waxaan aqooni doonaa the agreement the license and the next and then labadan option buu i siiyey which type of installation do you want midkee baad doonaysaa marka waxaan doonan doonaa the custom one and then this waa kii aan creatinay marka halkan buu ku shubayaa marka waxaan oran doonaa next marka next ida marka halkan baad process qaadan doontaa marka waxaan joojin doonaa video aan joojin doonaa markuu dhamaystiro haddii alla idmo ayaan marka aan ka sii wadi doonaa haddii alla idmo waxaan ku jirnaa hadda waa sii dhameynayaa sidaasaan u bilaabay marka waa the process intii dambe isu sameynaya
markuu dhameeyo wuxuu sameynayaa it's restarting uh, and then the browserka toos baan u gali doonaa. Marka hadda waa bilaamayaa and then waxaan sameyn doonaa waqti buu yar qaataa mararka qaarkood waan ka gaabin doonaa haddii alla idmo ma joojin doonaa hadda. Screenka hadda inoo soo baxay waxaan sameyn doonaa as I mentioned you this waxaa isticmaala Windows Server. That is waa administrator waa meesha administrationku ka maamulo kombiyuutarada kale. This is marka haddaan bilaabi doonaa marka password baan bilaabi doonaa. Passwordka waxaad ku qorataa unique one aan kaadan iloobeyn, you are not forgetting. And same thing, repeat the password again and then markaad dhamaysid next day. Marka as we install now, but as you see the screen saad arkaysid screen full ma aha. Marka waxaan samayn doonaa we install this the safe we completed already. Marka we install and installing VMware tools kan haddaan installno access 1.2 waxay noo dhib yaran doontaa the screen kan halfka ah ayaa markaa inoo buuxsami doona full screen buu noqon doonaa. Waxaan samayn doonaa calaamadda marsa calaamadaasaan ku dhufan doonaa oo saan u galo log. Marka halkan waxaan ku qortaa passwordkii aan creatinay kii ku qor. Ha wakaas marka this is the screen kan arkayno as saad arkaysaan screen is not full screen. Screenka marka half kan loo maqan yahay half kan loo maqan yahay laakiin waxaan ku install doonaa VMware ayaan ku install doonaa. Markaan ku installno the screen kan dhinacna dhinacan maqan yahay full buu inoo noqon doonaa. Waxaan samayn doonaa waxaan sugi doonaa hadda waxaa jirta server manager oo ah laga maamulo all the kombiyuutarada oo dhan oo kombiyuutarada oo dhan aad ku xidhid
this not working wanigi ku xidhnay inaad ku xidhnay marka accept kan kaa yes dheh marka hadda internetku waa diyaar oo xaafadda ama meesha joogtid ayaad isticmaalaysaa adoo isticmaalaya vm machine-kan internetku ku xidhan yahay laakiin waxaan samayn doonaa hadda the screen-ka inoo weyneyn doonaa anda laabka inta halkaasaan ku dayn doonaa ka laab kalaa ku xigi doono oo cashir taxaan u noqon doonaa haddii alla idmo marka markaan vmo tool aan installnayo waxaan tegi doonaa halkaa ku qoran tahay vm ku qoran tahay haddaad arkaysaan de mouse waa kaa dhaqaaqe halkaasaan ku dhufan doonaa anda waan socon waxaan tegi doonaa halkan install vmware tools halkaas kaasaan ku dhufan kaa markaan ku dhufto marka waan yar sugi doonaa halkan buu isoo dhigi doonaa da dvd ayuu isoo dhigi doonaa marka click see and then run the program this one sometime it come quick oo hore u imaadaa sometime waqti buu qaataa hadduu inoo iman waayo kale waxaan tegi doonaa oo kaas uu soo dhigay ka clickkaasi and then waxaad doorataa run set up kaa ku dhufo and then waxa kuu filmi doona this wizard baa kuu filmi doonta and then marka we'll say next okay ha this screen can welcome to the installation wizard for VMware tools waxaan doonaa next and then option kaas ku jiro next waan doonaa next and then install markaan uu kala dhamaado screenka halkan ay madoodahay iyo halkan madoodahay wuxuu noqon doonaa full buu noqon doonaa full screen so you can see the screen halkan se madooda iyo halkan madoodahay markuu inoo dhammaystiro waxaad arki doontaa full screen as you can see now it became a full screen and then it complete as you can see it's full screen now and then waxaan odhan doonaa finish and then computerku restart buu samayn doonaa finish wuxuu ku weydiin doonaa ma do you want to restart now or later marka waxaan odhan doonaa hadda samee baa odhan doonaa restart and now saad arkaysaan screenkeenu waa full aan sugno markuu inoo soo kaco mar labaad marka screenkeenu waa full marka inaan login aan sameeyo waxaan dooran doonaa calaamadda halkaa taalla and then markaan click marka passwordka ku qori doontaa as a user as I mee sheegay user waa administrator sidaad arkaysaan hadda windows server 2019 waan installiyey marka hadda it's functioning caadi weeyaan hadda sidaad arkaysaan marka waxaan samayn doonaa halkan laabka halkan baan ku jooji doonaa cashirkeena kale soo xiga waxaan samayn doonaa ip address configuration ayaan samayn doonaa waxaa kaloo samayn doonaa install garan doonaa active directory and the dns baan marka saasaan samayn doonaa insha allah wixii any comment oo ku saabsan cashirkan ku saabsan iyo networking ku saabsan caanaha ka dhigi doono ayaad hostalka ku qori doontaa haddii alla idmo
waayahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu